بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وناكسن صاحب بيال كسو دوادا wararka Soomaalida kuwii ugu dambeeyay mucaaradka iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya oo xilligan isu goodinaya iyo hubanti la'aan siyaasadeed oo dalka laga cabsi qabo inuu galo ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa doorashooyinkii dalka oo iyagana meel xasaasi ah maraya iyaga oo aan heshiis jirin ayna qabanayso dawladda dhexe ee Soomaaliya doorasho ay ku sheegtay golo deegaan oo ka dhacaysa magaalada Muqdisho gudoomiye hore ee doorashooyinka dalka Xalimo Yareyna waxa ay sheegtay in doorashooyinkan socda ay yihiin kuwa aanan dadka ay u wada sineen dad gaar ahna ay codeen doonaan wararka ugu dambeeyay ayaan halkan kugu soo gudbin waxa ay ka tiri ee soo dhawaada saaxiibayaal haddii ay tahay markay kugu horeysay aad soo boqoto waxaan ka codsanaynaa inaad saaxiibada la sii wadaagto qaybta hoose ee faaladan aragtida nagu wadaagtaan mar kale soo dhawaada saaxiibayaal aynu ku bilowno nuxurka warmurtiyeedkii ka soo baxay shirka golaha mustaqbalka Soomaaliyeed kaas oo maalinimadii amba maalmihii la soo dhaafayba ka socday gudaha magaalada Kismaayo ugu dambeyn la soo gabagabeeyay maalinimadii xalay ama habeennimadii xalay ahayd waxaana halkaas khudbado kala duwan ka jeediyay madaxdii ka qayb gashay kulanka laakiin waxaan rabaa inaan idin dulmaro falanqeeno kooban aan ku eegno guud ahaanba qodobadii laga soo saaray warmurtiyeedkaas ama shirkaasi oo dhowr qodob ka koobnaa waxaa shirka marka koowaad uu mudnaanta siiyay guud ahaanba midnimada iyo sidoo kale wadajirka ummadda Soomaaliyeed kana hortagaya wax kasta oo dhaawacaya midnimada dalka iyo dadka ayaa lagu yiri qodobka koowaad halka qodobka labaadna diiradda lagu saaray in meel looga soo wada jeesto la iskana kaashado sidii dalka looga badbaadin lahaa firaaq dastuuri ah hubanti la'aan siyaasadeed iyo sidoo kale halis cadowga argagixisada ee al-shabaab iyo sidoo kale al-qaacida ayaa lagu yiri qodobka labaad oo isagana kamid ah qodobada ugu muhiimsanaa ee warmurtiyeedka qodobka saddexaad in heshiis bulsho ee dawlad dhiska Soomaaliya saldhig uu yahay dastuurka kumeel gaarka ah ee 2012 wax ka bedelka halka dhinac ah ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ku sameeyay dastuurkana uu yahay waxba kama jiraan ujeedkiisuna yahay mid guracan oo lagu kala geynayo ummadda Soomaaliyeed ayaa lagu yiri waxaana ay si gaar ah arintan u taabanaysaa afartii cutub ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu sheegay in wax ka bedelka ku sameeyay kuwaas oo dana siyaasadeed ay mucaaradku sheegeen in loo bedelay isla markaana noqdeen geeri u go'an meel gaar ah xilligan ku xaniban qodobka afraad shirweynuhu waxa uu hoosta ka xariiqayaa in muddaxileedka golayaasha baarlamaanka uu ku eg yahay 14 Abriil 2026 halka uu kan madaxweynahana ku eg yahay 15 May 2026 shirweynuhu marna ma aqbalayo wax muddo kordhin ah ee hay'adaha dastuuriga ah maadaama ay abuureyso xasilooni darro siyaasadeed firaaq dastuuri ah iyo qalalaase amni qodobkan ayaa ah mid kamid ah qodobada ugu xasaasisan ee ka soo baxay shirka golaha mustaqbalka Soomaaliyeed kaasi oo ka dhacay magaalada Kismaayo waxaana qodobkan si gaar ah uu diiradda u saaraya isla markaana sheegeen madaxdii hadashay 14 Abriil wixii ka dambeeya baarlamaan shaqeyn kara in uu san jirin 2026 marka la gaaro halka 15 May 2026 marka la gaarana madaxweynuhu muddaxileedkiisu halkaas ku eg yahay haddii aysan doorasho dhicinna ay tallaabo qaadayaan marka intaas laga soo tago haddana ay ka dhalan karto qalalaase ama xasilooni siyaasadeed aad u daran kuwaas oo guud ahaanba dib u ridi kara guud ahaanba dawladnimada Soomaaliya qodobka shanaad oo shirweynuhu uu soo saaray waxaa lagu yiri shirweynuhu wuxuu diyaar u yahay inuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kala xaajoodo sidii dalka looga qaban lahaa doorasho heshiis lagu yahay daahfuran kana horumarsan doorashadii 2022 xoojinaysa matalaadda deegaanada iyo sidoo kale sharciyada xildhibaanka guddiga doorashooyinkuna uu noqdo mid heshiis lagu yahay isla markaana kuna qabsoonta xilligeeda ayaa lagu yiri qodobka shanaad oo isagana qodobada ugu xasaasisan kamid ah sidoo kale qodobka lixaad waxa kamid ah shirweynuhu waxa ugu baaqaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in muddaxileedkiisa muddo bil gudaheed ah uu ku eg yahay 20 Janaayo 2026 isugu yeero saamiilayda siyaasadeed ee dalka si looga heshiiyo doorasho xilligeed ku dhacda oo waafaqsan mabaadiida ku xusan qodobka shanaad ayaa lagu yiri kan toddobaadna shirweynuhu waxa uu isku raacay in haddii madaxweynuhu ka dhiga adeego ama iska indhitiro baaqa kor ku xusan goluhu mustaqbalku gudanayo ama gudagalayo
sidii loo qaban lahaa doorasho looga hortago firaaq dastuuri ah, qalalaase amni iyo halis argagixiso. qodobkan 7 ayaa isagana qodob kale oo diiradda saaraya arrimaha doorashooyinka dalka markaasi ah. qodobka 8 shirweynuhu wuxuu u arkaa doorashada ka socota gobolka Banaadir in ay tahay doorasho hal koox wadato laguna qaybinayo shacabka gobolka Banaadir, xaqoodana lagu doodsiinayo maadaama aan heshiis laga ahayn maqaamka caasimadda, taasina ay hareer marsan tahay dastuurka kumeel gaarka ah iyo sidoo kale qawaaniinta dalka ayaa lagu yiri qodobka 8. 9 shirweynuhu waxa uu ugu baaqayaa madaxda dawladda xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya ee muddo-xileedkoodii dhaafay inay qabtaan doorasho hay'adahooda dastuuriga ah si waafaqsan dastuurada iyo xeerarka doorashada ee u degsan ayaa lagu yiri. qodobka 10 shirweynuhu waxa uu la dareen yahay dadka danta yar ee la barakiciyay looguna awood sheegtay ciidankii dalka, wuxuuna cambaareynaya madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ee ciidamada ammaanku u adeegsada barakicinta dadka danta yar ah halkii ay daryeeli lahaayeen. shirweynuhu waxa uu ugu baaqayaa madaxda dawladda federaalka in si degdeg ah ay u joojiyaan barakicinta shacabka, xaraashka iyo boobka hantida qaranka ayaa lagu yiri. qodobka 11 shirweynuhu waxa uu ka digayaa caburinta iyo xadgudubka joogtada ah ee dawladda federaalka Soomaaliya ay ku hayso saxaafadda madaxa bannaan iyo ururada bulshada rayidka, sidoo kale in la joojiyo jaamacadaha iyo iskuulada lagu qasbayo inay ka qayb galaan doorashada kooxda madaxweynaha ay ka wadato qaybo ka mid ah gobolka Banaadir. waxaa kaloo shirweynuhu dalbanaya in la joojiyo siyaasadeynta duulimaadyada rayidka ah iyo adeegyada socdaalka. qodobka 12 shirweynuhu waxa uu bogaadinayaa ciidamada kala duwan ee Soomaaliyeed ee naftooda u horaya difaaca dalka, furimaha kala dagaalamaya cadowga argagixisada ee Al-Shabaab iyo Daesh ayaa lagu yiri. qodobka 13 shirweynuhu waxa uu garwaaqsan yahay dhibaatooyinka siyaasadeed, dhaqaale, amni, bani'aadanimo ee shacabka Soomaaliyeed ay wajahayaan. wuxuu kaloo walwal ka qabaa cadaadiska iyo sidoo kale faquuqa lagu beegsanayo shacabka Soomaaliyeed ee qurbaha iyo kuwa maalgashadayaasha ah dalalka shisheeye. haddaba shirweynuhu waxa uu golaha mustaqbalka u soo jeedinayaa in ay mas'uuliyad iyo xil iska saaraan muddo kasta ama wado kasta oo ay u mari karaan in shacabkan Soomaaliyeed ay helaan mustaqbal wanaagsan. shirweynuhu waxa uu ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed in ay ku baraarugaan xaaladda degdega ah ee dalka dadkuna ama dalkuba marayo ayaa lagu yiri. qodobka sidoo kale aan sii wadnay qodobkaas 13 golaha mustaqbalku waxa uu ku garabsiinayaa sidii looga miro dhalin lahaa dadaalka wax ku awlka ah ee dalka lagu samata bixinayo ayaa lagu yiri. sidoo kale qodobka 14 shirweynuhu waxa uu ku baaqayaa ama ugu baaqayaa dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladaha xubnaha ka culimada, ganacsatada, jaaliyadaha iyo hay'adaha samafalka ee ka shaqeeya inay u gurmad degdeg ah la gaaraan dadka ay sida ba'an u saameeyeen abaaraha ka jira dalka ayaa lagu yiri. qodobka 15 shirweynuhu waxa uu beesha caalamka iyo daneeyaasha arrimaha Soomaaliya uga mahad celinaya taageerida baaxadda leh ee ay la garab taagan yihiin shacabka Soomaaliyeed, waxaana sidoo kale lagu dhiirigelinayaa inay ka qayb qaataan dadaalada loogu jiro qabashada doorasho la isla ogol yahay oo waafaqsan ama waqtigeeda ku dhacda. 16 shirweynuhu golaha mustaqbalku Soomaaliyeed wuxuu uga mahad celinayaa talada iyo meel marinta qodobada shirweynuhu ay ka tashiga Kismaayo. 17 ugu dambeynta shirweynuhu waxa uu uga mahad celinayaa dawladda iyo shacabka Jubbaland soo dhaweynta iyo martigelinta aadka u heersareysa ee ay u fidiyeen martida ayaa lagu yiri. guud ahaan saaxiibayaal qodobadaas ayaana laga soo saaray shirweynihii golaha wada tashiga ama golaha mustaqbalka Soomaaliyeed ee ka dhacay magaalada Kismaayo. wixii ku soo kordhaa warmurtiyeedkan iyo sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya iyo golaha samata bixinta oo laga yaabo in isku dhac siyaasadeed iyo mid amniba uu ku dhaxmaro gudaha magaalada Muqdisho. barnaamijyadan wararkeena dambe ayaan idin kugu soo gudbin doonaa.